waxaanu shir salaad maanta ku qabanaynaa guriga Garaajaca Garaad Ismaaciil shirkaasi wuxuu daaran yahay imaatinka yagii isimada dhaqanka beelaha Soolsanaag iyo Cayn oo isla gurigan looga baaqay inay yimaadaan shir isugu yimaadaan guddiga 330 ahaa iyo garaadku ay yiraahdeen soo gala si loo mideeyo talada reerka iyo cududda soo gala go'aankii baanu ku soo galay waana la soo dhaweeyay shalay baanu soo galay magaalada xalay waa joognay saakana waxaanu la shirnay waxgaradkii guriga garaadku waxaan kula shirnay uqaashii culimadii guddiga 330 ahaa garaadka dhammaan ganacsatada shir weyn baa ka dhacay halkaa waa la isku xog waraystay waxaan u sheegnay in la yimi waxaanu awood saarnay midnimada waxa inoo ah halbeeg waxa noo ah midnimo wax badan baa dhulbahante lagu sheegay tafaraaro isaga haysta isaga ismaqlayn isaga maartay wax badan baa lagu naanaysay waa ka garownay arintaas inay jirto waxaan go'aan ka dhignay in la midoobo lambar 1 bay noo tahay haddaan midoowno oo isu nimaadno waxaanu aaminsanahay ama ay tahayba inaanan cidna ka caban karin cidna waxna yeeli karin cidna noo iman karin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu midnimada noo adkeeyo waa isbaraarujinay shirkuna waa noo sii socon doonaa muddo noo socon doonaa maanta kaliya waxaanu dadka siinaynaa in wax waliba ay oo ka noo yihiin oo aanu ku soo talagalay wax kasta oo aanu ku soo talagalay inay oo ka yihiin sidii loogu talagalay yihiin ay ilaaha darasi loogu talagalay wax walba ku soconayaan in la is aaminay la isu yimi rag kalena aanu sugayno dhaqanka wixii ka maqan nin iyo laba naga maqan qaarna maanta soo galayaan qaarna berintay soo galayaan cid kastana waa loo baaqay inay timaado runtii waxaan u sheegnay dhaqanka muddo 15 sanadood uu ka maqnaa saad ogtihiin la sacaanood dareenka dadka iyagaan ku maqnay oo ahaa meeshatan layni kama rabo tala kuma lihidin annaga joogayno isla bacbacsanayna ka baxabay ahayd banaankaan ka shaqeynayna runtii maanta iyaga noo yeedho yiri dareenkii gudihii buu soo wareegay soo gala gudaha waxaanu cadeynaynaa inaan ku shaqeyno dareenka dadka iyaga shacabka iyagaana xukuma annagu waa guddoon baanu leenahay waxa iyagu go'aansadaan waxa iyagu ku tashadaan waxa iyagu isku dhaarsadaan iyo guddigaas wixii ay gaaraan ayaan ugu ducaynaynaa marjac ugu nahay odayaal ugu nahay wixii aanu ka toosin karnana waa ka toosinaynaa oo aanu isdhaahna halkaas waxay u baahan tahay talo iyaguna sidaas oo kale ayay maaragtay ay ku kalsoon yihiin maantana hadalka iyagu wuxuu u badnaa in midnimada la adkeeyo isbedelkaas iyo midnimada iyo isku duubnida ilaahay baa nasiyay waa waxaan dinaqaynaa anana waa ka faa'iideysanaynaa waa sii xoojinaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu joognaa gurigii Garaajaca Garaad Ismaaciil shirkii waa noo dhammaaday shirkii dadweynaha halkaan aanu kula lahayn dhammaan dadweynaha kala duwan qaybihiisa waanu la shirnay waana nimi waxaanuna ku nimi baaqii garaadka iyo guddida iyo dadweynaha iyaga dabadiya gudaha in badan baanu maqnayn 15 sanadood baanu laascanood ka maqnayn iyo bilow waliba waxaanu ku maqnayn talaala'aanta reerka ka jirta iyo xukunka Soomaaliland ee laascanood haysta iyo ciidanka deegaanka la dul keenay koofiyadaha iyagaanu la maqnayn iminkana waxaanu ku nimi rabitaanka dadka iyo yeedhista naloo yeedhay waxaanu ku soo kordhinaynaa tayo iyo tamar iyo tilmaan iyo talo
waxaanu diyaar u nahay guddida iyo garaadka hawsha iyo gogasha ay dhigeen in la tayeeyo, in lagu midoobo, in dhammaan gobollada SSC wixii u dhashay cid kastaba ha noqdeene dibad iyo gudaba taageero gacan ka taageeraan, adin ka taageeraan, af ka taageeraan, siyaasad ka taageeraan. midnimadaasaa wax allaala wixii aynu u baahannahay aynu ku helaynaa. waxaanu rajaynaynaa guul. waxaanu leenahay midnimo midnimo midnimo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam. marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba ilaah mahad iska leh. ilaah waa kugu shukra, waa kugu mahad. marka afraadna waxaan u mahad celinayaa salaadiinta ku yimi baaqii shacabka annana aanu soo jeedinay iyo guddigii. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. soo dhowaada. garaado kalena waa soo socdaan insha allah. waxaa farxad weyn noo ah in dhaqankii markuu isu yimaadana talo wanaagsan oo fiican oo qiimo badan loo gudbi doono. haddeerna odayaashu iyo dhaqanku ay guddigii iyo waxgaradkii iyo gobolkii la shireen, caddeeyeenna guddigaasi wixii ay soo gooyaan in ay ku gowracan yihiin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhaqanow. talada oo wada leenahay, geesaynu ka fadhiisanaynaa. soomaalida waxay tahay wixii umusha dan oo baa ilmaha dan u ah, wixii dadka anfaca ba insha allahu tacaala ay noqon doontaa future-ka. garaadadu markay noo yimaadaanna markaas oo aan isu soo dhammaanno, markaasaa hadalkayaga nuxurkiisa iyo qiimihiisuna uu soo bixi doonaa. wasalaamu calaykum.